وإنه بشهر رمضان يبلها كلامه قفك مسلم كاهي وكصوم أرجع وكصوم قعنته وكصوم أفكه وكصوم أدنك وكصوم رجع marka halka waxaynu ka fahmaynaa xaqiiqada soomku inaanu ahayn oo kaliya qofku cunisti iyo cabisi inuu iska daayo kaliya bal soomku waxa weeyaan oo inta uu ka guda balaaray sida qofka bisha Ramadaan marka uu sooman yahay hadii wax ogaan cuno amba uu cabo soomkiisu uga burayo ayaa qofku hadii uu shay xumaana u dhageysto xumaana uu ku hadlo xumaana uu taabto xumaana uu dhageysto xumaana uu eego uu ku waayaya ajarkii iyo abaalmarintii uu ka helayay soomka hadduu qofku caayo amba uu ku aflagaadeeyo amba uu hadal xun kula yimaado aduu ka roono xataa war anu waa soomanahay oo soom baa i xidhan alxamdulilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira watacaala mahad iska leh ina soo gaarsiiyey bishii ramadaan ووحى الله تبارك وتعالى لوغو مهدنقه ولا ليال وحي الله سبحانه وتعالى ويدي سنينا إنه صومك إيا صلاتها إيا أعماشا صدقاتك خيرك إنه صومين إنه إلهي تبارك وتعالى إنت وإنك أقبله وحينو أين تلمامي دون كلمة دينا موضوع عاد مهم أورنتي قف والبا صوما muhim u ah oo taabanaya soomkiisa iyo noloshiisa iyo acmaashiisa bisha Ramadaan waxa weeye soomku sidiisaba ma ahan in qofku gaajoodo cuntadiina iska daayo cabitaankana iska daayo waxa laga yaabaa dad fara badan fahamka soomka ay ka haystaan inay u qaataan oo kaliya inuu yahay in qofku cuntadan iska daayo cunitaanka maalintii uu cunayay cuntada iyo cabitaankii iyo jimaaci ama galmadii u dhaxaysay labada lamaane Ilaahay subhanahu wa ta'ala isku baneeyay laakiin soomku sidaas ma aha waa ka guda balaaran yahay soomku xaqiiqadiisu ama dhabnimadiisu waa in qofka muslimka ahi xubnaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay uu ka soomo bisha Ramadaan habeenadeeda iyo maalmaheedaba haday tahay gacantiisa iyo hadii ay tahay afkiisa lugtiisa waayo qofku maadaama mar haduu sooman yahay waa inaanu afkiisa aanu kaga hadal wax xaraana oo aanu afka ka oran hadal macsiya aanu afka ka caayin qof bani aadama waa inuu qofku dadku ay ka amaan helaan gacantiisa ummadda muslimiinta ah ay ka nabad galaan gacantaada afkaaga iyo adinkaaga waa inaad xoolo xaq darro ku qaadan qofku dee aan waxba xadin bisha Ramadaan waa in gacantaada qof muslima aanad wax ku yeelayn lugtaada waa inaad lugta ka soonto waa bisha Ramadaan meel Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka xaaraantimeeyay aanad u tagin oo lugaha ku tagin si aad meesha macsiyo ugu soo samayso bisha Ramadaan waa inaynu ka soono dhaga oo qofka muslimka ahi aanu dhageysan wax xaraana oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u diiday hadii ay tahay heeso iyo hadii ay wax kala tahay waa inaynu bisha Ramadaan ka soono indha oo qofku aanu eegin wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka xaaraantimeeyay ama noqoto qof dumara oo xaraanka cawradeed ama wax kale oo daawanaya ha noqotay muhiimadu waa inaynu bisha Ramadaan iyo bilaha kaleba qofka muslimka ahi uu ka soomo aragga uu ka soomo gacanta uu ka soomo afka uu ka soomo adinka uu ka soomo dhaga marka halka waxaynu ka fahmaynaa xaqiiqada soomku inaanu ahayn oo kaliya qofku cunisti iyo cabisi inuu iska daayo kaliya bal soomku waxa weeyaan oo inta uu ka guda balaaray sida qofka bisha Ramadaan marka uu sooman yahay hadii wax ogaan cuno amba uu cabo soomkiisu uga burayo ayaa qofku hadii uu shay xumaana u dhageysto xumaana uu ku hadlo xumaana uu taabto xumaana uu dhageysto xumaana uu eego uu ku waayaya ajarkii iyo abaalmarintii uu ka helayay soomka xulay nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska ibn Khuzaymah ibn Hibban iyo Xaakim bay soo wariyeen laysa siyaamu min al-akli wash-shurbi xul nabiga calayhi salaatu wasalaam soomku ma aho kaliya
qofku inuu ka tago cunistii iyo cabistii. inama asiyaamu min allaqwi waalrafathi, soomku waxa weeye qofku inuu ka tago waxyaabihii maalayacniga ahaa ee dembiyada ahaa ee xumaanta ahaa ee macaasida ahaa. fain saabaka axadu aw jahila calayka faqul inii saa'imun. hadduu qofku caayo amba uu ku aflagaadeeyo amba uu hadal xun kuula yimaado, aduu ka roono waxaa taa war anu waa soomanay oo soom baa i xidhan. walaalayaal, soomku ilaahay subxaana wa tacaala uu inaga doonay keliya ma aha cunista iyo cabista inaynu iska dayno, bal waa in wax walba oo xaaraana, mid lagu hadlo iyo mid la taabto iyo mid loo socdo oo meesha taallo loo tago iyo mid la dhegeystay, intaba ilaahay subxaana wa tacaala waa inaga xaaraantimeeyey oo waynu ka soomayna. ugu dambayntii wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiiska abu hurayra: man lam yadac qowla الzuuri wاlcamala bihi falaysa lilahi xaajaة bian yadaca طacaamahu wa sharaabah. ilaahay subxaana wa tacaala baahi uma qabo qofka aan ka tegayn hadalka xun ku hadalkiisa iyo ku camal falkiisa. ilaahay baahi uma qabo qofkaasi inuu ka tago cuntadii iyo cabitaankii, waayo qofkani maadaama uu ka tegay cunistii iyo cabitaankii laakiin aanu ka tegin waxyaabihii kale xaaraanta ka ahaa, dee soomkiisu waa dhaawacaya, soomkiisuna waa ka buraya, sida abu daawuud iyo bukhaari iyo tirmidi ay wariyeen. ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu ka baryaynaa inuu inaga dhigo kuwii ka sooma cunista cabista iyo wax walba oo xaaraana, wax lagu hadlo iyo wax la eego iyo wax la maqlo intaba. waxaynu ilaahay subxaana wa tacaala weydiisanaynaa soomkeena inuu naga aqbalo bisha ramadaan. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.